kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal idilhaantiinba meel kastoo aad joogtaan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa horumar weyn ka sameysay sanadkii aynu sagootinay 2017 dhinacyada dhismaha ganacsiga iyo waxbarashada haddii aynu ku horeyno horumarka dhinaca dhismaha magaalada Burco ayaa kamid ah magaalooyinka ku yaala geeska Afrika ee sida xawliga u koraya dhinaca dhismaha sanadkii aynu sagootinay ayaa laga hirgeliyay magaalada dhismayaal waaweyn oo aad loo qurxiyay madaxa shirkadda dhismaha Daryeel Maxamed Aadan Iidan iyo maareeyaha shirkadda dhismaha wadooyinka biyo-gelinta iyo beeraha ee Allafora Mukhtaar Cabdi Jaamac ayaa uga waramay TV-ga Universal horumarka ay soo kordhiyeen sanadkaasi رب العالمين دمانتين والسلام يا برنامجك قاعد كل قيمة بدنا صوت يارسي وحقولي سوكر لنا أما وحيابها نفريني تسلسلتين كا يسرفيسية سوكر لنا أدب بلاريهين أدب بحدويهين وحنا كقيم قاعدين هرمارك قبل كتب إرك كل هنا طهرت كهلا الشركات ده يسرفيسية سرفيس وأوين بحساب مركز سرفيسية يرك على لقطك بحدوين الله قبوا حوي قبل كوب قبوا هو بيها ويان تبغى رئيسة بيجرين تويه سرفيس كلا بعض بحنا وحوي وسمنت ودوينك iyo runtii ka qayb qaadashada wax weeye dib u dhiska dalka xagga infrastructure-ka wadooyinka baliyada baraagaha waxyaabahaas oo dhan weeye iyo service-ka ugu dambeeyo ah wax soo saarka beeraha runtii qaybta ugu muhiimsan ah haddaan ka hadlo 2017kii service-yadaas waxyaabaha ka qayb qaadanay waxa kamid ahayd baliya fara badan iyo waxyaabaha badan oo aan runtii dib u dhis oo aan soo fulinay sidoo kale ka qayb qaadanay biyo-gelinta magaalada Burco sanadkan si baaxad leh wadankeenu iyo dadkeenu ay u baahan yihiin sidoo kale waxa ugu dambeeyay oo aan ka qayb qaadanay wax soo saarka beeraha oo sanadkii ugu dambeeyay aan 50% aan kor u kacnay oo aan wax beernay runtii aan gobolka ku celinay tartanna wax lagu jirnaa oo aan halkan ugu jirnaa in foreign countries ku waxyaabahan ay keenayaan ee crops-ka ah oo dalku ka maarmo sida tarateed waxaanu beernay laba beerood oo weyn oo runtii aad u weyn baan runtii gelinay tacfar badan gelinay dalku wuxuu ku jiraa inuu runtii halkan u galo wuxuu cunayay inuu gacmihiisa ay adeegsadaan xaka biyaha ka filaano runtii dhammaan dadka shacabka gobolka Togdheer bay guri ugu geeyno biyaha kulli istiraatiijiyadu noo taalo halka ka dheeraan iyo vision-kaasan yaan u leenahay runtii waan gaari doonaa insha Allah marka meel loo karo laga maarmi karaa shirkadaha gaarka loo leeyahay dhinaca biyo-gelinta mar haddii wasaaradii ay jirto oo wakaaladii biyo-gelinta qaabilsanay ay jirto mararka qaarna caqabada ay yimaadaan u dhaxeeya shirkadaha gaarka loo leeyahay dhinaca biyo-gelinta iyo wakaaladda biyaha Burco waa su'aal fiican weeyaan organizationska laga hadlayo aad bay loogu baahan yahay mar walba oo wax laga maarmo inta badan maaha walaal wakaaladda iyo wasaaradana waxaan leenahay wada shaqayn fiican baan leenahay oo wada shaqaynaa oo waxaan ka qayb qaadanaynaa on halkan ka dheereen dadka lagu xaqabtirayo biyaha dawladda hoose kala shaqo mashaariicda ka qaadataan wadooyinka ku hirgelinaysan looga warantaa ma jiraan wadooyin aad hirgeliseen Burco gudaheeda sanadkii dhamaaday dhowr wado oo runtii aad u halbowle ah baan runtii ka howlgelinay haday noqoto guud ahaanba jamhuuriyadda Soomaaliland oo gobolka Togdheer quraan ahayn wadada weyn ee wax weeye aan soo gabagabeynay qaybtayadii nagu aadinay sidoo kale gobolka Togdheer guud ahaan wadadan hawdka ee halbowlaha u ah runtii laga soo gelayay magaalada gacanta ku haynaa imanka runtii iyadana aanu insha Allah si waliba casriyeysan modern aanu sameyn doonay wadadan ka dhalaydko aan wax ka dhisnay wadooyin kale dawladda hoose soo hormara oo aan runtii iyadana ka qayb qaadanay haddii aan kaaga warramo mashaariicda qaarna way socdaan qaarna way dhammaadeen oo waa la soo xidhay mashaariicda dhammaatay kulley dahabshiil baan oo aan ku wadnay renew ama cusboonaysiin xagga kaleydinka oo kale iyo muraayada adag oo aan dhagaxu karayn Sofe Hotel oo halkaa golis hodheelka ka socda Omaro isaguna imanka gabagabaa waa markaynu ka hadlayno mashaariicda suuqa santarka deegaanka ku jirin guryaha yar ee khaas loo leeyahay meelaha magaalada koonayaasheeda dhaqaalaha xoolaha noolahay dadka hoos u dhac ku yimid waxa qorshay ugu yeelan Daryeel dadka noocaas ah sababta ah dhibaatada badan haysta ee doonaya inay wax dhistaan qofkii haysta dhul wanaagsan oo meel wanaagsan ku yaala maalan uu ku bedelan karo dhisme dawaa la eegi karaa iyadoo loo eegayo in laga qaato dhulka isagana loo fuliyo
mashruuca uu doonayo ama guriga yar doonayo oo loo tixgelinaya insha Allah runtii maanu ka bilaabin burco laakiin uu ka socda mashruucaasi Hargeysa shirkadana way shaacisay dhulka iyadoo hayso qofka boqolkiiba ka tan ay ka qaadayso qofka boqolkiiba ka tan bay ka qaadaysaa guriga doonayana waa loo dhisayaa inta kalena wuxuu ku bixin karaa bil hafta ah sidoo uu awoodo bulshada insha Allah dawaan soo dhaweynayno sidii ay nagu barteena dhismo dhaxalaha oo qurux iyo tayaba leh ayaan dad soo dhaweynayno ugu howlgalayna insha Allah sidoo horeba waxbarashada oo furaha nolosha aadanaha ayaa si weyn looga dareemay magaalada Burco koboca dhanka waxbarashada sanadkii dhamaaday magaalada ayaa laga hirgeliyay dhowr dugsi oo waxbarasho iyadoo ay hore uga jireen dugsiyo hoose dhexe iyo sare oo tiro badan waxaana si weyn u kordhay maraakiista barashada culumta shareecada islaamka iyadoo muddo dheer ay ka jireen magaalada laba markas oo waaweyn oo lagu barto culumta shareecada kuwaas oo ahaa Imaam Shaafici iyo Sunne dhinaca jaamacadaha waxa ku yaala magaalada Burco 8 jaamacadood jaamacadda Al-Najah oo u gaara barashada culumta shareecada islaamka iyo luqadda carabiga ayaa noqotay jaamacadda kaliya ee gaar loo leeyahay ee hirgelisay dhismo weyn oo ka kooban dhowr qaybood oo leh qayb jiif ah oo loogu talagalay ardayda ka timaada geeyiga Soomaalidu degto iyo guud ahaan geeska Afrika kaasoo dhismihiisu ka socdo xaafadda Jaaliyadda ee waqooyiga bariga magaalada Burco sidoo kale jaamacadda Golis ayaa hirgelisay sanadkii aan ka soo gudubnay xarun u gaara ardayda kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Golis laanteeda Burco gudoomiyaha jaamacadda Golis ee Burco Cabdixakiin Maxamed Cabdilaahi iyo gudoomiyaha jaamacadda cusub ee New Generation Maxamuud Maxamed Said ayaa la hadlay TV-ga Universal waxaan aad iyo aad u mahadcelinaynaa Universal TV وأنا فريند على النهاية جامعة نيو جنريشن يونيفرسيتي كم عصبة يعني Somaliland لكن waxay ku cusub tahay inay gobolka Togdheer waxaana ka mid tahay horumarka ballaaran ee ka socda Somaliland gaar ahaan gobolada sanadkan 2017 waxaan ugu talagalnay Burco Togdheer iyo nawaaxigeeda inaan la qaybsano horumarka oo uu keeno waxbarasho tayo leh jaamacadda waxay ka furan tahay Burco laba meelood meel waxa loo yaqaan afkooyo halkan ay joogna headquarterka New Generation University College waa meel istiraatijiga afarta meel Burco ay isku yimaadaan waxyaabaha ay jaamacaddu la qaybsanaysaa gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco waxa kamid ah kulliyadahan aan ugu talagalnay kulliyadda siyaasadda amba social science waxa loo yaqaano sidoo kale waxaan ugu talagalnay kulliyadda maamulka iyo maareynta ganacsiga waxaan ugu talagalnay kulliyadda computer information systemka waxaan ugu talagalnay kulliyadda engineeringka waxaan ugu talagalnay kulliyadda health science-ka sidoo kale waxaan ugu talagalnay master programka ayaan ugu talagalnay waxaan u ballan qaadaynaa bulshada Togdheer iyo nawaaxigeeda inay naga heli doonaan waxbarasho tayo leh jaamacadda Purely oo Ethiopian ay xarunteedu tahay headquarterkeeda labaadna waa Hargeysa sidoo kale waxay ka furantay gobolada galbeedka bulshada maadaama gobolka Somaliland ay bari u badan tahay ugu talagalnay inaan horumarka la qaybsano la shaqeyno wada shaqeyn toos ah leh wasaaradda waxbarashada Somaliland oo kala shaqeyno dhinaca tayeynta dhinaca tababarada gaar ahaan bahda waxbarashada waa su'aal aad iyo aad u fiican waxaanu kaga duwanahay oo anagu ballan qaadaynaa inaan waxbarasho systemkeedu dhameystiray dhinaca shuruucda aanu kaga duwanahay dhammaan jaamacadaha ku yaala Somaliland waxaanu kaga duwanahay jaamacadayada arday secondary ka soo baxay ma arday kale inaanan sameeynin systemka qoritaanka aanan ogolaanin aad iyo aad maasantiin TV-ga Universal ugu soo booqday runtii jaamacadda Golis jaamacad weyn oo ballaaran waana jaamacadda nambarka ugu badan ardayda Soomaaliland ee fadhiyaan gobolada Soomaaliland oo dhan ka samaysan farceedan Burco sanadkan waxyaabaha Burco ku soo kordhin waxa kamid ah campuskan quruxda badan la arkaysan oo ugu talagalnay ardayda caafimaadku inay ku bartaan oo la laababkii hoolalkii mataqaana ay ku practice gareynayeen kalaasyadii oo diyaarsan ama ku qalabaysan qalab casri ah waxa lagu mahadnaqo in 2017 aanu guushan gaadhnay iyadoo markaa aan ugu talagalnay in ardaydu helaan environment sax ah wax ku bartaan wax ku akhristaan oo ay markaa mataqaana ku haboon tahay waxbarashadii ardayda gobolada bariga iyo gobolka Togdheer waxaan ugu baaqaynaa inaan u sheegno inaan u diyaarinay meel ku haboon waxbarashadii isla markaana takhassusaad kala duwan oo aad iyo aad u qiimo badan laga helayo oo markaa caafimaadka iyo maarta qaybaha kala duwan ee fakalada sida business economiga engineeringka iyo ICT-ga marka waxaan rajaynaynaa ardayda reer Burco inay ku soo dhawaadaan campuskan quruxda badan leh iyo environmentka waxbarasho aad ka wanaagsan sida wax loo qalbay aad iyo maasantii dhinaca ganacsiga magaalada Burco ayaa horumar baaxad leh ka sameysay dhanka ganacsiga sanadkii dhamaaday waxaana laga hirgeliyay magaalada
xarumo ganacsiyo casri ah oo qaarkood ay leeyihiin goobo ay ku caweyso dhalinyaradu xilliyada habeenkii. kobaca ganacsiga gaadiidka ee bulshada Soomaalida ayaa sare u qaaday ganacsiga shidaalka ee geyga Soomaalidu degto. daabacaadaha casriga ee daabaca boorarka waxbarashada iyo ganacsiga ayaa qayb weyn ka ah horumarka magaalada. maareeyaha xarunta ganacsiga Nasteexo Maxamed Xuseen Xasan, madaxa kambaniga Waasac Cabdiqani Cawil Xuseen iyo madaxa xarunta daabacada Sagal Chat ee magaalada Burco Maxamed Daahir Cali ayaa sharaxay horumarka ay sameeyeen sanadkii hore. Universal ahaan waa mahadsantiin Burco waxaan ku soo kordhinay xarunta Nasteexo marka hore magaalada waxaan ku soo kordhinay bilic iyo shaqo abuur iyo hoteelkan oo hotel casri ah qaybo badan ka kooban qaybihii VIP-da qaybihii xafladaha barxado lagu caweeyo oo dhalinyarada waxaas ku caweeyaan hurdadii ayaan ku soo kordhinay dhismihiisa laftiisa qaabka uu dhisan yahay oo aan oran karnaa waa nashqadii u horeysay magaalada ku soo kordhin Nasteexo business baa lahaa meeshan waxaan ku soo kordhinay saacado dheeraad oo 12 habeenimo ilaa koodaba hoteelku furan yahay insha Allah taala waanu sii kordhinaa waxaan higsanaa halkan meel ka sii fog in Nasteexo ay gaadho waan ku bogaadinayaa isku ganacsada dhigeegii ay dhisaan oo ugu daydaan magaalada ay hor socoto. aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa TV-ga Universal TV-ga soo runtii aan wada shaqeyno runtii Burco waxa ku soo kordhay waxyaalo badan oo horumar ah waliba intii xukuumadii Axmed Siilaanyo anoo kambani ahaan kambaniga Waasac horumarkan sameeyay waxa kamid ah xaruntan 2017 kan sameeynay bildinkeeda aynu joogno hadda iyo horumar badan oo aan ku sameeynay dhinaca aviation-ka gaasta diyaaradaha dhaqaalaha kor u kacay iyo deganaanshiyaha iyo nabadgelyada marka waxyaalahaas runtii sababay inay horumar samayso anaga oo go'aan qaadanay inaan magaalada wax ku soo kordhino maadaama ay tahay meesha aan dhaqaalaha ka helnay waxaan mahadcelinaynaa macaamiishayada customer-kayga dhammaantii runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa la ilaawi karin shirkadda Telesom oo kambani ay wada shaqeynayeen ilaa 2000 iyo ilaa maanta mahadcelinayaa kambaniga Baraka Construction ee dhismaha waxaan runtii u mahadcelinayaa shirkadda Dahabshiil oo aan macaamil fiican leenahay oo kambaniga horumarkiisa qayb ka ah. Maxamed Daahir Cali maamulaha Sagal Chat xafiiska Burco dhammaan macaamiishayada waxaan uga hambaleynayaa curashada sanadka cusub anagoo adeegii aan u qaban jirnay bulshaweynta guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer oo macaamiishayada nagu xiran anaga waxaan u ballaarinay adeegyadii aan u qaban jirnay anagoo casriyeynay oo tayeynay adeegyadii nalooga bartay ee aan hore u qaban jirnay daabicista boorarka iyo xayeysiiska ganacsiga ka Burco ahaan anagoo furnay qayb kale oo ah magaalada gudaheeda anagoo tayeynay adeegan awalba u qaban jirnay macaamiisheeda anagoo ogsoon inay macaamiisheedu yihiin hantida koowaad ee aanu haysano insha Allah sanadka cusubna waxaan ugu bishaaraynaynaa inaan keeni doono adeegyo cusub oo aan hore u iman dalka insha Allah oo raali gelin doona macaamiisheeda oo aan ku sii labalaabi doono adeegii aan u qaban jirnay awal hore aan ku soo dhawaada Sagal Chat guud ahaan gaar ahaan Burco annagoo idinku soo dhaweyn doona insha Allah gacmo furan iyo adeeg idin raali geliya waxaan halkan uga sii mahadnaqayaa Universal TV shaqaalaweynaha Universal TV